بسم الله الرحمن الرحيم. ما hooyo fiican baan noqdaa mise xaas fiican? Su'aashan ay murugada ka muuqato waxaa in badan isweydiiya hooyooyin badan oo qurba joog ah oo dhalinyaro ah. Hooyooyinkaasoo tacabka hooyanimada intuu ka tambadiyey ay ku khasabtay inay iloobaan daryeelka nafsadooda, ha ahaato dhinaca cunnada, ha ahaato dhinaca isqurxinta, taasoo xataa sababtay inayba tabarba u waayaan inay ka baahitiraan baahida gogosha ninkooda. Taasna waxay saameyn weyn ku yeelatay labada isqaba iyo ubadkooda. Khubarada carruurta ayaa waxay leeyihiin carruurta markay yar yihiin intay hadalka baran waxay bartaan dareenka, oo way og yihiin markay hooyo iyo aabbo ay faraxsan yihiin iyo markay murugaysan yihiin. ayagoo wejigooda fiirinaya carruurta waa dareemayaan. marka dhakhaatiirtaas waxay leeyihiin waa muhiim inay carruurta inta badan arkaan hooyo iyo aabbo faraxsan. Si taas loo helana, midda koowaad waa inay hooyada nafsadeeda daryeeshaa. qof aan nafsadeeda daryeelin nafsad kale ma daryeeli karto. sida caadada ahayd markay hooyadu cusub ay dhasho, Soomaalida waa la umul bixin jiray oo reerkeeda ayay waxay la joogi jirtay muddo 30 casho ah ama 40 maalmood. waxay gurigeeda imaan jirtay ayadoo soo kabsatay oo isa soo qurxisay. dhakhaatiirtu waxay ku leeyihiin caadadaas waa caado aad u fiican. hooyadu waxay ka celinaysaa jirada loo yaqaan postnatal depression ama jahawareerka umusha, oo ay hooyooyin badan oo reer galbeed ay ku dhacaan. dalka Mareykanka ayaa 7 hooyo hal hooyo ayuu ku dhacaa jiradaas. dalka Ingiriiska 10 hooyo hal hooyo ayuu ku dhacaa. laakiin waxa ayaan dara ah baryahan hooyooyinka Soomaalida ayaa jirooyinkaas lagu arkay. marka si taas loogu hortago, kaalmada ninka iyo gabadha waalidiinteeda ama qaraabadeeda ama dariska Soomaaliyeed, kaalmadooda waa muhiim si ay gabadhaasi u dareemin cidla. maxaa yeelay waxaa jirta maamaah Afrikaana oranaysa ubadka xaafad dhan baa korisa. marka tan labaad waxaa muhiim ah in lamaanaha ay ka wada hadlaan isbeddelka ku yimid ubadka ku soo ziyaaday guriga. siday u maareyn lahaayeen waa inay fadhiistaan oo ka wada hadlaan. Soomaalidu waxay tiraa kolba sida loo jabaa loo dhutiyaa. marka waxaa kaloo muhiim ah markii aad wada hadlaysaan si oo nabadi ku jirta inaad ku wada hadashaan. sidoo kale inaad isku barbar dhigin reero kale, maxaa yeelay carruurta isku baahi ma aha. reerka kale yacni ubadkooda iyo ubadkaaga isku baahi ma aha. ubad waxaa jiro ku dhasha, ubad waxaa jira oohin badan. marka waxaa fiican baahida gurigiina inaad ka hadashaan. midda saddexaad waxaa muhiim ah inaad ogaataan in tacabka hooyanimada uu yahay wax dabiici ah oo qof walba ay taabanayso. waxay taabatay Faatima binti Muhammad oo haweenka kuwa ugu sharafta badnaa ku jiray ninkeeda Cali bin Abi Taalib. Faatimo nabigay u timid, waxay tiri u sheegtay dhibaatooyinka oo hooyanimada, xitaa gacmaha ka murxay. waxay tiri khadaamad iyeel oo i adeegto. marka nabiga guriga uu imaaday ayadii Cali oo jiif wuxuu yiri ma idin sheegaa wax taas ka fiican oo khadaamad ka fiican. wuxuu amray inay ku dikriyaan subhanallah 33, alxamdulillah 33 mar, allahu akbar 34 mar. wuxuu yiri marka salaada cishaha laga baxo intaad gogasha aadin ku dikriya. Faatimo waxay tiri dikrigaas markaan badinay tacabkii iyo wixii Ilaahay waa noo fududeeyay oo alxamdulillah dhibkii waa naga yaraaday. marka idinkana waxaan idin leenahay ducaysta, dikriga badiya. waalidnimadu waa sharaf weyn, taasna waxay u baahan tahay inaad Ilaahay ku mahdisaan. waalidnimada Ilaahay baa quraankiisa kariimka ah ku qadariyay. nabigeennana Allahumma salli wa sallim calayh wuxuu inoo sheegay waalidnimada fadligeeda. wuxuu yiri waalidiinta markay dhintaan waxay arkayaan camalkooda kor u kacaya, markaasay weydiinayaan yaa rabbi camalkan intuu ii yimid.
markaasuu ilaahay leeyahay waa caruurtiina ayaa idin soo ducaynaysa awgeed ayaa camalkiina kor ugu kacay. marka waxaan idin leenahay noqda waalidiin fiican, noqda lamaano fiican, sida aad jannada ilaahay ugu kulantaan. jannada ilaahay waa qaali, waxaana lagu helaa tacabka waalidnimada iyo diinta. waa inaad dulqaad u yeeshataan si aad jannada u heshaan. waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen. waa barnaamijkii Horumari Ummadaada oo idin soo gudbiyey Baazi Xaaji Busuri. waxaa kaloo isku soo dubirida walaalkeen Axmed Amiin Xasan. daawadayaal, barnaamijkan waa barnaamij taxane ah. fadlan isdiiwaan geli oo subscriber ka noqo. sidoo kale saaxiibadaada u gudbi si ay uga faa'iidaystaan dhalinyarada oo hadda ku soo socda inay hooyo iyo aabbo noqdaan, si ay ugu diyaar garoobaan. jazaakumullahu khayran. mahadsanidin.